Somali kamanan goyn waxaan nahay garab kamida waxaan goobnaa midnimo haddana maamul gaar ahoo dantooda gartaanu nahay Somali kamanan goyn waxaan nahay garab kamida waxaan goobnaa midnimo haddana maamul gaar ahoo dantooda gartaanu nahay waxaanuga socda Somali kamanan goyn waxaan nahay garab kamida waxaan goobnaa midnimo haddana maamul gaar ahoo dantooda gartaanu nahay Somali kamanan goyn waxaan nahay garab kamida waxaan goobnaa midnimo haddana maamul gaar ahoo dantooda gartaanu nahay بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء دولة فدرالك الصومالية مدحوينها كونفور قلبيد مدحوينها قلمدق قدوميها بارلمانكا كونفور قلبيد وزير رضا لوضا هير سنتر رضا xildhibaanada labada heer taliyayaasha iyo dhammaan marti sharafta halka joogta dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa dhinacayga taagan nuurudiin waxaan rabnaa inaan ilaalino qodob dastuuriya marka waxaan rabnaa khudbo ma iyo maxaa tiraba halka inaan ka soo jeedino runtii waa u soo tabaabashaysanay xafladdan quruxda badan waxaan marka ugu horeysaa madaxweynaha xukuumadda golayaasha dowladda shacabka reer koonfur galbeed ugu hambalyaynayaa xafladdan ku aadan sanad guuradii saddexaad markii madaxweynaha la doortay xukuumaddanna la aasaasay runtii waxay gelinaysaa farxad gaar ah inaan ka soo qayb galo iyo inaan indhahayga ku arko horumarka ballaaran ay koonfur galbeed gaartay weliba muddadii sanadkaa la soo bandhigay anigoo sanad ka hor soo booqday waxaan qirayaa isbeddel weyn oo mug leh oo ka bilaabanayay aragtidayda markaan ka soo degay garoonka inuu aada u muuqdo meelihii kale oo aan arag oon baydhabo ka baxsanaydna dokumentarigii halka lagu soo bandhigay oo si wanaagsan u faahfaahiyey waxaa runtii dadka soomaaliyeed maanta ay qirayaan faa'iidadii federaalku uu keenay muddo ka hor waxaa gobollada koonfur galbeed khaasatan meesha halka aan ku sugannahay gobolka baay dhici jirtay guddoomiye gobol mid degmo mid qaybeed shaqaalaha kala duwan kulligood inay ahaan jireen dadaan reer koonfur galbeed ahayn maanta inay u heleen inay fursad iyo sacbadaada looga dhargaabaa la yidhi inay maanta dalkoodii dhisayaan dadkoodii ay dhismayaan maamulkii ay daadejinayaan waxaan kaloo ku faraxsanahay koonfur galbeed inay tahay dhinaca maamul daadejinta mataanta labaad ee puntland oo degmooyinka ku soo xiga puntland ee golayaasha deegaanka leh ay koonfur galbeed tahay waxay muujinaysaa arrintaasi sida ay u soo kabanayso dowladda Soomaaliya oo dadkeedu ay talada ugu dhawaanayso oo dadkeedu ay u rabaan in ay deganaansho iyo nolol ay helaan
dabcan wakhti xanuun badan baa la soo maray dagaallo sokoyaa la soo maray abaaro baahsan oo dowlad wax ka qabata lahayn baa la soo maray macaluul baa la soo maray waxaad maanta haysannaa dowlad federaal ah dowlado xubno ka ah oo maanta wixii markay wax dhacaan si degdega ugu gurmanayo waxaa daliil ka ahaa masiibooyinkii dhacay oo ay u dambeysay tii bakool ka dhacday siduu madaxweynaha iyo dowladdiisa sida degdega uga jawaabeen waxay markhaanti ka kacaysaa dowladaha habkan u dhisan inay ka waxqabad badnaan doonaan haddii la eedno dowladihii urursanaa ee ka fogaa baahida dadka runtii dowlad in la dhiso waa wax adag inay burburto waa wax sahlan oo waan aragno way naga soo burburtay in la dhiso waxay u baahan tahay waqti waxay u baahan tahay fikir waxay u baahan tahay maal waxay u baahan tahay sabir waxay u baahan tahay midnimo iyo wadajir intaasoo dhanba haddaynan la imaan haddaan Soomaali nahay way adag tahay inaan mar labaad aragno quruxda maanta noo muuqata inay meelo badan ay ka iftiinto waxaa weli hor taagan in degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeed weli diyaarada loo kala raacayo waxaan maalin dhoweed ku arkay dhalinyaro ka socota golayaasha deegaanka ee qaybo kala duwan ee Soomaaliya ay ku jireen qayb ka socota koonfur galbeed waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah safar dheer oo ay boosaaso intay ka yimaadeen baan Qardhis ku aragnay xubin ka mid ah deegaanka Ceelberde ayaa la socotay wuxuu yidhi marka aan rabo Baydhabo inaan aado diyaarad baan soo raacaa waana garan karnaa inta kiiloomitir u jirto Bardaale 55 kiiloomitir bay u jirtaa buu yidhi haddaan khaldanayn waxaanse maanta ku farxay inaan markii ugu horreysay arkay oo sanad ka hor aan arag ciidan koonfur galbeed leedahay oo tababar ka soo baxay meelaha ka dhinnaa waxa weeye safarkii hore aan imid ciidamada oo dhan waxay ahayn heer federaal ciidamada federaalka waxaa la rabaa ciidamada militariga inay noqdaan laakiin booliiska iyo daraawiishta waxaa la rabaa haddaan rabno inaan federaalka adkayno inay noqdaan ciidamo stateka uu leeyahay oo bulshada yaqaan oo bulshada u dhow maxaa yeelay ciidanka militariga dabcan hadda waxay ka howlgalaan la dagaalanka argagixisada laakiin asalku wuxuu noqon doonaa inay ilaaliyaan xuduudaha dalka Soomaaliya marka waxaan u baahannahay maamul daadejinta in lagu daro dhismaha hay'adaha dawladda oo ugu horeeyaan hay'adaha amniga waxaa ii muuqata hifafaale aad u wanaagsan oo dhammaan isteediyada Soomaaliya ka muuqata waxaa inta badan isugu yimaadaan shirar waxay isweydaarsadaan aaraa waxaa ka dhex dhaca wax wada qabsi khibradahay bay wadaagaan maamulada siday u kala horeeyeen bay isu tababaraan waxaa ku dhismaya qaran xooggan oo awood u leh inuu dalkiisa iyo dadkiisa uu ka difaaco cadow kasta oo jira waxaan rajaynayaa xafladda tan wixii lagu soo bandhigay inay u noqon doonto tusaale dadka Soomaaliyeed ay arkaan horumarka ballaaran ee dhinac walba ka socda haddii ahaan lahayd dhinac amni dhinac arrimo bulsho dhinac dhismo iyo infrastructure iyo dhinaca ugu muhiimsan oo anigu aan hadda isheeda u soo jiidatay waxa weeye kobcinta ilaha dhaqaalaha iyo ururinta canshuuraha oo runtii si fiican halka looga sharxay oo ah aasaaska dawladnimada iyo cadaaladda runtii waxaad moodaa koonfur galbeed muddo yar oo kooban in ay ku soo afjeerayso ama ku afmeerayso dhismaha hay'adaha dawladda si dheelitiran arrintaasi runtii waxa weeye arrin yididiilo leh oo loogu hambaliyeeyo
gaar ahaan madaxweyne cabdicasiis loogu hambaliyeeyo taariikhduna ay qari doonto. anigu waxaan u imid maamul muddo dhisnaa, waxaan u imid maamul 21 sano dhisnaa, laakiin isagu wuxuu u yimid maamul curdin ahaa oo muddo yar dhisnaa. marka waxaan qirayaa muddada yar uu joogay, isbeddelka uu sameeyey waxaa qiimeyn kara qof mas-uul ka ah maamul dowladeed iyo hay-adihiisa. waxaan qirayaa shaqada halka aan ku arkay inay tahay shaqo ka ballaaran 3 sano oo aan isdhihi karo 10 sano ayay ka badan tahay. waxaan u rajaynayaa koonfur galbeed inay cageeda ku istaagto, inay dalkeeda ku fidnaato, inay degaanada kaleeto ee dariska la ah sida Hirshabeelle iyo Jubbaland oo xuduud ay leeyihiinna ay wada shaqayn fiican u yeeshaan. isteedyada kaleeto ay mataanaha yihiin sida Galmudug oo halka laga sheegay oo xiriir fiican ay leeyihiin, iyo Puntland oo xiriirkooda bulsho uu 100 sano gaarayo. jiilkii reer Puntland ay halka deganaan jiray 200 sano ku dhawaayeen. kuwa hadda Puntland koonfur galbeed ee Puntland deganna waxaa markhaanti ka ah wasiirada iyo agaasimayaasha iyo dadka faraha badan ee maanta dowladdan ka tirsan magaaladana degan ee ku soo barbaaray Puntland xilliyadii adkaa ee u dambeysay. dadka Soomaaliyeed maalinba qof baa loo baahan yahay, maalinba degaan baa loo baahan yahay. koonfur galbeed waxay ahayd meesha loo soo hayaamo, loo soo cararo oo barwaaqada iyo nolosha loo soo doonto. ma rajaynayo inay noqoto meel dadkeedu duruuf uga cararaan. wixii dhacay oo halka laga sheekeeyey inay dib dambe u dhicin. waxa keliya oo ku suura geli kartaa waa inaad dowladnimo adag dhisnaa oo dadka u adeegta oo dhaqaalaha dihin fursad u siisa ay kula soo baxaan, ee uga maarmaan inay degaano kaleeto intay tagaan waxyaabaha aan laa'iqa u ahayn inay ku dhacaan mar dambe. anoo ka xun runtii waan rajaynayaa in ay koonfur galbeed iyo guud ahaan Soomaaliyaba ay soo kabasho fiican samayso, dowladnimo hana qaado ay samayso, dadkeedu ay deganaansho iyo amni iyo xasilooni iyo horumar ay ku naaloodaan. waxa ay ku imaan kartaa iyada oo la iskaashado, la isku dulqaato, laga wada shaqeeyo midnimada iyo isku tanaasulka. waxaan si adkaynayaa, waxaan mar walba ku celcelinaa, aan isku adkaysanno, aan isku sabirno. dal waxaas laguma dhiso. dal waxaa lagu dhisaa waa sharci iyo kala dambayn iyo wax heshiis lagu yahay. dadka Soomaaliyeed waxaan halka uga soo jeedin lahaa inay maalin walbo aysan dowladoodu u ekaan hadda markaas madaxda joogta iyo si isku fahmaan, oo labadii markaa isku fahamsanna ay wax wada qabtaan. markay isqoonsadaan la dhaho dalkii halis buu ku jiraa. waxaa la rabaa dalka in sharcigiisa dhidibada loo aaso, dastuurkiisa la dhammaystiro, dowladnimadiisa iyo hay-adihiisa ay sharci ku dhisnaadaan. cidda khaldanta wixii laga yeeli lahaana si cad ay u soo baxaan. dalkanna uusan noqon hadba qofkii yimaado inuu meeshuu rabo isaga jiito. kala dambaynta iyo sarraynta sharciga iyo ku dhaqanka dowladnimada danteennaa ku jirta. laakiin waxaa la rabaa in dadka mas-uuliyiinta ay ka bilaabato si bulshada weynna ratiga ka horreeya saanqaadkiisu leeyahay. dhaliile hadday jirto dhaliisha madaxdaa iska leh. madaxdu ama si babliga ama si hoose ha wada hadlaane mas-uuliyadda ay leeyihiin inaysan ka gilgilan, in ay dalkan samato bixiyaan, inay u saaraan nidaam iyo wakhti laguga fakero in dalka nidaamkiisa dib loo dhiso. doorashada waa arrin aan dhinacna looga wareegi karin. waa saldhig. waxay u tahay in nidaamkii xukunka ee runtii muddadii u dambeysay burur kadib bilowday
labadii kun bilowday inuu hore u socdo waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu nidaamkaas istaagin maalinta ka dambaysa uu horumaro dadka marmar dhahaya nidaamkan ha la iska daayee golayaal ha la sameeyo waa dad raba inay teendadii cardo dadkan ku celiyaan waana khatar fikirkaas anu waa ka digayaa laakiin wixii khaldan in la saxaa loo baahan yahay wixii khaldan wuxuu u baahan yahay in la saxo khaladna waa imaanayaa meel howl ka jirto sida la sheegay saaxiibadii halka ka hadlay madaxweyne qoorqoor haddii uu yidhi 80% annagaa qaadanay insha allah khaladka inta ka dhimanna iyagaa iska qaadan doona annaguna wax wanaagsan baa daba dhigi doona haddii ilaahay wax wanaagsan inay hagaagaan baan rajaynaynaa dalkuna doorasho lagu qanacsan yahay inay ka dhacda ayaan rajaynaynaa oo la isku caloolfiyow yahay dadka Soomaaliyeed colaadooda waa intay kala maqan yihiin hadday isu yimaadaan kaftankooda ku dhamaystaan wax wada qabsigooda saaxiibada kale oo naga maqan waxaan rajaynayaa inay sidaan oo kale noqon doonto insha Allah haddii aan khalad la maqnayn iyo haddaan sax la maqnaynba waana la arki doonaa haddii ilaahay insha Allah waana rajaynaynaa haddii ilaahay idan ka dhigo kolley wixii ay qabteen wax waa kaga dayan doonaa laakiin waa wanaagsanaan doonaa haddii ilaahay aad baa u mahadsantihiin